السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومدى الصوماليات مير الله لما يشهد جوتان وحان لذين كل سلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود هذا ما شاء الله. ما أنت عارف المهم يا إن كهذا الروا سود هذا إن شاء الله تعالى. وحنا دي تجعل هاي هذا الكيجا إن لجارسيو متك وين قوارجينها لما عبحي على الديرة أمر والبو maalmahan dhex taagan baraha bulshada oo isku dayo inuu shacabka u hanjabo shacabku ma hanjabi karo annaga hor taagan insha Allah ta'ala mideeda kale shalay waxaad ugu barateen ma sha Allah Allah dhaaf Allah xafido Allah dooro madaxweynihii hore madaxweynihii sagaalaad mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo balse la socda ciidanka xilli alaale madaxweynihii imaado ayay la socdaan haatan waxa inoo joogo madaxweyne ah mudane Xasan Sheekh Maxamuud hadal walbo asagu ku dhawaaqayna waa hadal soconayo soo baabi'inayo cadawga argagixisada al-shabaab Ali Dheerow Fircoonow waxaan ku dhihi lahaa hadalkaago idil waxay wiil mid yahay aniga nin ooynayo oohin banaanka la soo fariistay calaacal iyo oohin wax ma taro shacabka dhaxdooda miinooyinka aad ku qarxinaysaan ee dhibaatada aad ku suubinaysaan inaad ka daasaan ciidanka banaanka joogo imaada banaanka dagaalka banaanka ayaa looga baahan yahay looguma baahna bulshada dhaxdooda in wax lagu dhibaateeyo marka insha Allah ta'ala ilaahay idinkiis nasriga adiga aad sheegatay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa qaadanaya nasrigaas ilaahay ayaga iyo siinaya waayo waxay ku taagan yihiin wadadii saxda ahayd waayo ummadda Soomaaliyeed dhiigooda ay ka badbaadinayaan qoladan burcada ah oo diin laawayaasha ah argagixisada ah arxan laawayaasha ah la magac baxay ururka ugus waxaan leeyahay ilaahay idinkiis waa idin baabi'in doonaa shakhsi idinka idin kamid ah ma soo hari doono haddaad isleedahay waad hadashay baraha bulshada ayaad ka hadashay awalan ciidanka ma cabsi gelin kartid waayo kaama cabsanayaan adiga iyo 10 noocaaga ah shacabkana ma cabsi gelin kartid oo runta ay ogaadeen inaad caruurta gowracaysid aad caruurtooda xoog ku soo qaadanaysid aad masaajidka wax ku dilaysid culimada ayaa kula hadashay waroo dhan waxa ku dhameeyay Sheekh Umal ayaa ku dhameeyay khayr Allah siiyo waxaan la hadlayaa midka fircoonka ah Ali Dheere hadoo wax maqlayo hala gaarsiiyo codkeyga cid walbo ima qasho hala gaarsiiyo codkeyga mideeda kale waxaan halkan kaga darsanayaa aan horan u dhahay وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم وآيات قرآن dadka qaladka iska aaminsiiyay amba dawladda dhaleeceeya amba xumaha baraha bulshada kaga sheekeeya waxaan u sheegayaa maanta halkaas aan kala hadlayaa dawladda maanta oo inoo hogaaminayo mudane Xasan Sheekh Maxamuud inay ciidanka la shaqeeyaan mar walbana horumarinayaan wadanka iyo guulaha wadanka aanan cid ka hor imaan karin cid ka hor imaan karta aysan jirin ciidanka qabiil ma ahan ciidanka wax qabiil ma ahan mar walba cidii uu imaato ayuu la shaqeynaya marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa quraankiisa inoogu sheegay in la adeeco madaxda laga dambeeyo madaxda amaamirtana loo hogaansamo insha Allah ta'ala al-shabaab waan ciribtiri doonaa Soomaalidana waxaan ka codsanaynaa ducada kaliya mooyaane shabaabka ma cabsanayno meel allaale meeshay joogan ayaan ku soo qaban doonaa Ali Dheere afkiisa weyn oo kala taagan asoo meed ah amba asoo hadlaaya idin keeni doonaa insha Allah ta'ala bal sadeertan
meelaha uu ku dhuumanayo marka la aado wuu sii dhuuntaa banaan isma soo dhigo laakiin insha Allah annaga ayaa banaanka soo dhigi doonno Sheekh Cali Dheerow aw Fircoonow Cali Dheerow Fircoonow annaga ayaa banaanka soo dhigin doono insha Allah taala nasriga ilaahayna annaga ayuu gacanteena ku jiraa annaga nasriga ilaahayna annaga ayuu nasiin doonaa kelmadda hore aan dhahayna shaydaan ayaa wax gafin nasriga ilaahay ayuu gacantiisa ku jiraa gacanteena ayuu ku dambeyn doonaa insha Allah taala ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu jecel yahay ninka dhiigga ummadda Soomaaliyeed amba dhiigga muslimiinta ah ninka badbaadiyo ayuu ilaahay mar walba la jiraa anaga mar walba waxaan diyaar u nahay dhiigga muslimiinta inaan ka badbaadino adigan mar walba waxaad diyaar u tahay inaad muslimiinta dhiigooda aad gashid hala gaarsiyo Fircoonka Cali Dheere ah codkeyga cid walba oo maqasho oo fiirsato hala gaarsiyo kama cabsanayno meel alaala meesha uu joogo ayaan ku soo qaban doonaa insha Allah taala وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soomaaliya ha noolaato.